hortiisa wasiirka maaliyadda hortiisa waxaan codsanaynaa rugta ganacsigu waxay haysaa qorshe ay rabto suuqa bakaaraha in looga shaqeeyo si uu u gaari lahaa 10 sano oo soo socota inuu noqdo suuq la tartami kara ugu yaraan wadamada dariska suuqa bakaaraha ma ahan suuq caadi ah wuxuu ku yaalaa 3 degmo oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn magaalada Muqdisho sidaa darteed wuxuu u baahan yahay qorshe ballaaran oo ka bilaabanaya security-ga ilaa iyo nadaafadda wuxuu u baahan yahay wax fara badan dokumentigaas qoraalkiisu waa soo dhamaaday waxaan u baahannahay inaan la qaybsano oo nala wadaagto waa cabashada ugu horreysa cabashada labaad shirkadaha ajnabiga ah ee waddankan ka shaqeeya fursad bay waxay u heleen wax kasta oo mashruuca oo waddankan ka jira keligood in ay helaan tartanka kuna guulaystaan mar ka mid ah mararka aan madaxweynaha dhegeysanay wuxuu nala jeclaystay ugu yaraan jacaylka asagoo uu u qabo in United Nations mashaariicda ay bixinayaan ugu yaraan 50% ay siiyaan shirkadaha Soomaalida ah hase yeeshee arrinkaasi 6 bil kadib wax ka hirgalay lama arko wax dhinac lagu eedeynayo male laakiin waa in dib u eegid lagu sameeyo energy waa cabashada ugu yaabka badan ee waddanka Soomaaliya maanta ka taagan waxa loo yaqaano afka Soomaaliga korontada $1.3 ayuu unitkii ka joogaa magaalada Muqdisho wadamada la dariska ah 0.4 unit ayuu ka joogaa wadanna horumar ma gaari karo toosan haysanin waxyaalaha warshadaha yaryarka ah ee soo saara waxyaalaha loo yaqaano warshadaha beeraha loo yaqaano haddii aadan shiidi karin muuska soo haro zaidka haddii aadan cabitaan u bedeli karin haddii waa nasiib darro waxaad noqonaysaa wax meel lagu soo dhamgareeyo baaska lagu soo dhamgareeyo waxyaalaha wasaqda ah ee caalamka ay soo saaraan sidaa darteed waxaan codsanaynaa lacag fara badanna adduunku ay u hayaan oo ugu horeeyo African Development Bank waxa la yiraahdo green energy ama energy-ga Soomaaliya maanta hodanka ka tahay qorraxdu ka mid tahay dabayshu ka mid tahay in dawladdu ay u samayso siyaasad cad oo ay ganacsatada ku maalgashadaan kuna raadsadaan lacagaha ay hayaan African Development Bank oo filayo inuu yahay mid runtii way arag fara badan ka soo shaqeeyeen ee maanta waddanka ku sugan yihiin midda u dambaysa aad iyo aad ayaan u nasiib badanahay wasiirka maaliyadda soo jooga hortiisa arrintan ka akhri waxay tahay ma dhici karto in Soomaaliya cashuurta laga aruuriyo kaliya dekada Muqdisho hayeeshee xanuunka dowladnimada ay ku qabto magaalada Muqdisho diyaar bay u tahay in cashuurta bixiso waxaan rabi lahayn markuu inaan aragno magaalada Muqdisho oo nabad ah sida darteed dekada magaalada Muqdisho diyaar bay u tahay inay cashuur bixiso waxayse diyaar u ahayn meel ay ka jirtana aan la arag awoodda saddex inay u qaybsan tahay aan soo sheegay oo ah ganacsatada dowladda iyo miidiyaha ma suuragelayso consultation ayadoo lagala sameyn ganacsatada in golaha wasiiradu ay baasgareeyeen cashuurtii bariga haba yaraatee arrinkaasi dhib weyn baa wuxuu ku hayaa macnihii dekada Muqdisho waa meel dad yar ay ka ganacsadaan waa raalli bayna ka yihiin inay cashuurta xanuunka badan ama wixii la halmaalay ay bixiyaan laakiin ilaa ay hadda ma aanan arag ganacsatada halkan joogta talana kama inaan bixin waxaan codsanaynaa dokumentiga inaan akhrino marka aan akhrino taladeena soo fifaadno sidaa darteed taladanadana ay micno yeelato aad iyo aad baa mahadsantihiin